السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ودمانتي وسلامتي دنود على ذا الميل والبوجكتين أنا واحد مقاعد عمر أمريكا بقادر فضلا هذا كل شيء هاي جنالك عمر أمريكا وحكاو سنين سبسكرايب لايك كومنت شير انتاس بوا حقادا هدي سبسكرايب سرتي تاس معناها هذا وحان وقياسا إنات جعشة هاي هرماركينا أما إنات مدير جلسيد إنات أضيق ديار وطهاي أيان قياسينا أصحابتا كلي halkan waxaan u soo fariisnay su'aal iyo jawaab kulay su'aal ana wata ayadana way ka jawaabaysaa ayadana haday su'aal wadato marka nala socdo u baasday dadka okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada Soomaaliya waani salaamay halkan niga salaamayna waa janalki Umar America booqda janalka subscribe like share comment كل وحقينا صور ويا مركا واني سلامي يعني جو نور تحبي اوكي نور تحبي كل نور تحبي ايضا waxa leedahay no YouTube ay leedahay YouTube keedana maartay waxa ku qoran نور تحبي channel aan ku qoran channel keedana booqada maartay subscribe like iyo comment intooda maartay u saara insha Allah hadana waxaan jecelnahay inaan su'aalaha la bilaabo amaan su'aal iyo jawaab marka alla igu bilaabo su'aasha ama anaa ku bilaabo su'aasha waa dhankaada jawaabta dhankayga waa ma okay su'aasha hadii dhankeeda ay jirto hadal igu soo tutur aan kugu soo tuturo saas waa igu tutur aan kugu tuturo su'aasha koowaad aan ku weydiinayo waxa waaye haddii lagu dhihi lahaa waxa adduunka aad ugu jeceshahay hal shay adduunka ugu jeceshahay dooraa haddii lagu dhihi lahaa kee dooran lahayd oo lagu siinayo hal shay adigana aan ka maarmaynin oo adigana lagu siinayo ma ka maarmin ma ka maarantiidba aan lagu dhahay marka hal shay adduunka aad ugu jeceshahay ka dooro ما شاء الله هالك الشيء لكن ما أرتاح لأنتيس كله وحوم لنا يا أرتم كوسي معناه لكن هالك الشيء هذي دورة لونه أو اللي مرمين هذا كان أتقو باهنت هاي هالشيء أتكمرمين هذا كان أتقو باهنت هاي وأدونك وجعشها كذا ما يهمك إيه كان لدعي هالشيء ما أدونك أوجعشها إلى اللبسيو هالشيء هالشيء أدونك أوجعشها آخر ما هي أدونك لا أوجعشها in lagu siiyo waxaan jeclahay adduunka in lagu siiyo cayaalkayga oo aniga nabad aan ku noolaano adduunka dhaxdaysa raaxada adduunka igu ma in cayaalkayga ay isla joogno nolol aan isla wadaagno iyo aniga mustaqbalkayga wanaagsan wax kale ma u jeclay adduunka okay ama jiraan wax kale aad jeceshahay oo adigana aad ka maarmi karin oo hadda aad ka tagtay ma jiraan cunto inay tahay اوكي هذا بعض انت الان كذا واحد بعد لو قصي معنا كل مصر تجلس ما زايد واحد كم جوابي هذا حالي قصينا سؤال شوي واكد جوابتي هذا بعد لو دا واحد adiga ka maarmeen oo hal shay ka dalbad loo dhaw xalaado cunto meeshii soo gashay maartay biinik maartay iska meheraan marka cunto ma laga maarmo la'aanteeda lama joogo la'aanteeda nolol ما صرت جالس وقت سؤال اوكي هرت تاس واك جبابتي هل حببونتها وانها صاي هذه 1 بوينت هاستا 3 بوينت هاد لكن واحد 1 بوينت هاستا هاي مبان اوكي سؤال شلوان سؤال اللي يودي 3 بوينت قاشي اسم حاول هذا سؤال كويس هذا سؤال جوابي بصراحه كوا شيء وان سوما وان شيء ولكن انا مسكحدي هذا يما شيغن anyway waa sheegtay laakiin markii kood waa shay wasmo waan sheeg laakiin su'aashaada okay su'aasha waxaad ka maarmin ay dhahdo ma ogtahay maxaad dalban lahayd aan ka maarmin ay dhahdo ma ogtahay wax adag waa run dhanka hadee Soomaali waxay dhahdaa ma ogtahay nin hadlay ninka kale si kale u qaad aniga waxaan u qaatay in aniga life ka noloshayda maxaad u baahantahay in lagu siin lahay ay dhahays laakiin waa ku soo celi Soomaali waan fahmay gidaada ka fahmay Soomaali hor maxaa fahmay ma fahmayay waxa la yiraahdo waa ogtahay okay anyway su'aasha jawaabtooda waan kugu jawaabay eedadayda igu mar dhalinay way iga jawaabtay mar eedadada meeyuna waxa la
haddii naagta oo eedadeeda lagu dhalo doqon waa la dhaha moogta naagta eedadeeda aan lagu dhalin waa naag aqli leh saas waa ma fahantay haddii eedadaada lagaa dhalay waryaa eedadaa maga lagaa dhagan haddii lagu dhaho waa lagu caayay saasa waa doqon saasa ilaa doqon aan iga dhigin amiin aamiin okay su-aasha labaad oo xigta waxaa waaye kolay su-aashan jawaabta adaa lagaa rabaa tusaale ahaan anaa kugu jawaabay ma haddaan jawaab waayo okay waxaa haysataa kalar midow aa haysataa kalar midow marka kalarkaas midow aa la rabaa qof dhagool inaad dhahdid kalarkan midow soo ma aha sidaad ku dhihi lahayd qof dhagoole qof dhagool ah waa ma aha indhool maaha indhihiisa maarata caadi waaye marka kalarka wuu midooy laakiin qofka waxaa la rabaa inaad dhahdid kalarkan midooway sax soo maaha oo keliya jawaabtiisa waxaa la rabaa inuu dhaha haa asaa haa dhahayo jawaabta haa inuu dhaha sababta midoowa haysa soo maaha marka jawaabtiisa inay ahaataa la rabaa haa marka kalarkaas midooga ee marka dhagoolka sidaad ku weydiin lahayd kalarkan midooway sax soo maaha midow miya asaa warsanaya muxuu yahay kalarkan waa u sheegayaa madow ma oho miya kalarka midow inuu yahay asaga wuu ujeedaa soo maaha hindhoola ma aha marka waxaa la rabaa oo keliya kalarkan midow waay sax soo ma aha marka jawaabta asaga waxaa laga rabaa haa inay ku ekaato jawaabtiisa haa haddii tusaale ahaan ani weydiin lahayd maxaa ku dhihi lahaa haa waa midow marka saas inuu dhaha la rabaa sideed ku dhihi lahayd marka saas kalarka midow waay ka jawaab dee buuf le iska buuba ka jawaab su-aasha may waa u gambiyey dhacdhac waabo dhacdhacdhac su-aasha waa loo gembi macnaha 3 pointa dhacdhacdhac waa u gambiyey mid kale okay qisada ana igu adkeed horta kow wax walba horta adduunka waxaa u fiican noloshaada cuntada iyo waxaa ugu muhiimsan inaad cayaalka aad heshid okay cayaalkaadana seefin ku ahaadaan adiga iyo cayaalkaada inaad nolol wanaagsan ku noolaatiin صح alxamdulillah marka intay oo cayaalka aan helin ilaahay isiinin anoo gabar waxaa igu adkanay zaa'id noloshayda anoo yar aabahay uu dhintay 10 sano anoo jiro صح ilaahay u naxariisto 10 jiraan ahay amiin markaas aabahayga asoo 10 sano anoo jir uu i jeclay zaa'id allah maxaa la dhahay u naxariisto jannada allah geeyo amiin hamiga waxa ku fi maxaa la dhahay aan ku haminayay hataa inaan ka xootiga imaanin ilaahan u shirkiyay horta waxaan dhahay aabahayga hadduu noolaan lahay ma imaan lahaynin kaamka alxamdulillah marka ka bacdi aabahayga markuu dhintay noloshayda caadi aad ay xumaatay kow anoo yar hooyaday iga soo tagtay 3 sano anoo jiro waxay isoo reebatay ayeeyday markii isoo reebatay ka bacdi aabihiina waa dhintay aabihii lima geynin laakiin eediday ay haysatay eedada markii ay haysatay aabahaygu kor ugu ogaanay markasta oo i imaan jiray noloshayda waa i xiriirin jiray oo i imaan jiray xanuunkayga caafimaadkayga markii asiga dhintay oraxda iga dhacday ayeeyday hataa anoo yar oo meelahaas aan jiro oo 8 jir meelahaas aan ahay dhimatay ma u malayn inay iga dhintay laakiin maalintii aabahey iga dhintay iga xanuun adkanaa wax walbo noloshayda maalintaas inaan mugdi galaan u malayn ka bacdi markuu saas u dhintay eedadayda agteedaan joogay eedadii saan ula joogay ka bacdi waxaan isla samayn jirnay adiga meel oo waxaan aadi jirnay shaqo israaceena waa la soo shaqayn jiray ka bacdi shaqada markaan aadno waxaan aadi jirnay haddana meel oo beer lagu falayo markaas ay beeraha la aado bosti la dhahaa bosto lacag ku siinaayo beerihii usoo falaysid eedadii yaan raacayaa bostidii lasoo falayaa ka bacdi siisaas u heeday eedadii way isoo waday waxay i keentay gaari isoo saartay gaarigii cidna meesha ma saarno laakiin gaari basa lii saaray oo nin oo sidii xawilaad makasi lacagta meesha laga soo siinaayo oo meesha la rabo ninkan ii geeyay camal kismaayaa lii keenay kismaayo waxaa u malaynaya inaa nabadgeli liigu keenay
oo meeshaad kasoo nasanay camal meel magaalo lagu wadaa meesha kusoo nasanaysaa meeshaas markii lii keenay meeshaa laygu tagay shaqaa lii keenay anigu uma malaynaynin meeqa sana jirta waan 13 sanaan jira umalaynaya haye marka kismaayaa marka lagu geey shaqa inaad ka shaqeyso inaan ka shaqeeyo anigu uma malaynaynin marka shaqada aad ka shaqeyn doonto marka maxay ahayd shaqa guri shaqa guri ma kasay guriyaalka wax lagu oo la qabto cuntada la karanayo dharka la dhaqaayo sax guriga la hagaajinayo sax ilmaha la haynayo haye waxaa la geeyay maamo oo meesha qaraabo aan agteeda ayada shaqada i geysay maamo waxay i geysay oo maxaa la dhahay heer baraawo ee ninkeedana carab haye shaqadii sidaan uu shaqeynay waxaan soo kici jiray 8 saac habeenimo dukaanay qabtay alaabtaasaan soo bixinaa sax waa isla caawinayna way ila soo bixin jireen alaabtaan soo bixinayna ka bacdi alaabtaas markaan dhameeyo 8 saac lay kicinay ilaa waagu barayay shaqaan qaban jiray sax ilaa waa oraxda ka dhaceyso sidaas ugu jiray waa marka maskaxdayda hore u weynaata maahu waxaan dhahay ma karaay shaqadan waan ka baxayaa ka bacdi waxaa lii keenay gabar oo samsam la dhahayo gurigeeda oo inay ku caawiso ma gabadhaas ma haddana shaqaalo way haddana ana u shaqaynayo haddana waa u shaqaynayo shaqadii hor marka waa diiday waxa la shaqada ma qaban kari marka shaqo kale ka doorato miya zaid samsam marka zamzam ta u shaqaynayso hadda samsam taha haddana markii kale samsam ta marka waalantii kale haddana waan kasoo tagayaa waxaan ugu soo tagay wadaadkeeda markasta markii gurigaan hagaajinayso waxda iyadoo jiifto markaan hagaajiyo way soo kacaysaa musqushay galay way qabeysanay ayada bii uma shubi jirin markii guriga aan hagaajiyo wadaadka soo kaco waxay leedahay nuurta ninka wadaadka xaajiga bii ma u shubtay markaasaan dhahay markasta waan adkaysan jiray markii kale waxaan dhahay uma shuwaayay xaajigaada waxay tahay gabar walaasheeda meesha joogtay oo cuuriyaan gabadha walaasheeda kamanaxaysa ceelkay tagay biyaha ayadaa shubanayso ay ku qubaysanayso wadaadkeeda waxay leedahay bii u shub uma shuwaayaan dhahay lacagteedaan kugu baahanahay isii lacagta waayahay lacagtii waxay isiisay aday 100 kuna laga shaqeynayo 80 kuna isiisay bishii wax yara ka dhinneed anoo meesha isku dagaalsanayaa imaaday samsamta walaalkeeda wiilkaas ay imaaday Abdiqaadir la jiray markaas uu dhahay anaaba shaqaalo baahin xaaskeyga xaamilo waay meeshaasaan ku geynayaa gurigaas waa meesha uu igeeyay waa la soo dhaweeyay maasha Allah gabadha nimcaan la dhihi jiray waa isoo dhaweysay marka sheekada inta ka dhaxgale marka gabadha oo zamzamta marka lacagtii marka waxay bilaawday markii aad u shaqeyso in oo lacagta kaamil ay ku siinayso oo si xaaf ay ku siiso ku bilaawday ama si daacadnimo ay ku siinayso si daacadnimo ay siinayso laakiin shaqada guriga aan fahmi weynay markii oo aan kasoo tagay 8 kunka isiisay waxay isiisay bishii ma dhamaaninayay bishii ma dhamaanin bishii kala bartmeeda kasoo tagtay صح bas adiga halahaas meeshaas aan kasoo shaqeynay kulli lacagtu waan soo qaadaya waxaan u keenay jiray maamadaas waxay u sii diri jirtay eedadayda ayada qaadanayso shinan lagama siinayo waan shaqeynaa lacagta ayada iska qaadanayso marka waan shaqeynay eedadaale u geeri bis meeshaasaan geynaa maamada meesha shaqada ayada ay geyso mooho markii lacagta u geeyo waxaan u maleynaa lacagta in aan dhigayo meel oo reer samaan lagu sameeyay laakiin eedida loo dhigi jiro ma ogaan jirin waxaan ogaaday markii kale gabadha nimcada agteeda lii keenay shaqadaas anoo ku jiro marka maalintii kale waxaan ogaaday bishii koob aan shaqeynay meesha imaatay anoo maqan fiiri gabadheeda way walaalkeeda ay dhalay shaqadii anoo maqan ay imaatay lacagtii bas ay qaadatay gabadha say tahay xaaladeeda hataa ma dhigin lacagtay qaadatay waxay u laabatay goshay u laabatay lacagteeda iska qaadanay bas say tahay gurigeeda ay aaday lacagtii ay qaadanay waxay adeeg magaalada way ma ogta Kismaaye waxay ugu baahan tahay ka gadanay meesha ay aaday marka waa shaqeynaysaa wax laygama siinaayo waxa waaye adigi shaqaale dameer shaqeynaayo camal waxna lagu siinaayo hataa cuntada hataa iyaga ay siinayaan maadaama dameerka marka lagu shaqeysanayo xoolihiisa wax laga siiyo dameerka badhaama ma ogta laakiin cidaasaan bawaalid aan ka dhigtay iyaga wax walba isiyaan maxaa la dhahay hadda sidii gabadha foodleyda shoobin iyo waxaas u baahan tahay hataa gabadhaas ay iibin jirtay ayada wax ima siinaynin bas lacagtii aad shaqeysay ba ayadu u taagneedaba inay tahay marka tii maanta igu xanuun badneed horta taas ay aheeday ka bacdi waxaan imaaday qaxootigii hooyadeyda telefoon soo dirtay nin adeerkayga soo wacday markii la soo xariirtay meesha hooyada lagu geynaa lidhe aniga hooyadey waxaan u maleynaa inay Kenya ay joogto hooyada agteeda lagu geynaa markii lidhe maxaa la dhahayay
ina hooyaday agteeda la igeynayo oo Kenya markii la keeno oo la mootinayo meesha hooyaday la igeynayo صح بس الحمد لله ماشي كحوتي عليك يعني ماما ورثتي هذا أكتيدا سلعي ماشي أنك صوب سلع كدران يا ماشي إبو خبصة هذا هيا تي هرا تي دافتي صح تي هرا أو شفاعة شفاعة هذا أو وايو Soomaali in kasta hadda leeyahay dadka isku mid ma aha صح waa gabadhaas gabar ma jeertana ay heeday maxaa la dhahayay sidii ayada gabar i dhashay camal ay ila dhaqmi jirtay guriga ay ugu aamintay wax kasta صح waxay gaartay wax kalsoonis waxaan ku yeeshay 3 maalin way kala tahay dadka moogta 3 maalin markii gurigaas joogay 3 maalin waxay meesha ii dhigi jirtay dahabkeeda iyo lacagti waan qaadaya qaanadan gelin jiray 3 maalin markay saas iyo aragtay furihii lacagti iyo dahabka ugu jiraysiisay صح guriga waxaan ka naqday wax ayada ii dhashay cam صح reer waxaan gaaray walaalaheedii aan isdagaalnay inay gabadhaas iga hiiliso tolkeeda ay dhahdo hooyadeeda gabadhan waa gabar ani amaane igu tahay صح lama dagaalaysid hooyadeeda ana darteeda u goysay oo marka maxaa keeni karaa marka dagaalka oo marka abdi iyo gabadhan oo heshiis oo marka dagaalka oo dadkaas dhankooda kaaga imaan kara marka dagaalka marka soo bilaabay maxuu ku imaan zaid waan ku sheegayo gabadha magaalada jirtay guriga waxaa degnaayeen 2 gabdhood iyo 1 wiil iyo hooyadooda gabadhanna hooyada la degneed laakiin gurigeeda 2 qol iyo barsu ahaay musqusha iyo jikada maxaa la dhahay shirka lagu ahay ayadii hooyadeeda ayada way maqnaayeen waxa joogeen marka loo foodlay waxa lagu heshiiyay maadaama gurigan hal uu yahay anigana shaqaale meesha aan ka ahay subax kasta subax foodlay soo kacda inay alaabta dhaqdo subaxna ay ku qoran tahay foodlay kale daarada ay xaqdo subax naag dhar dhaqdo subax canjeero mid ay ku qornaato maalintaas aniga tookaday ma ahaynin markaas marka ayga waxay ugu dhaheen waa sameynaysa sameey ma sameynayaan marka adigu ku qorneynay leeyahay marka qofka gooskiisa waa ina sameeysid 2 walaal waay ha gabadha kale way iga weyn tahay mid kalena anay ila ag tahay labadii marka dagaal ay ugu sameeyeen way igu soo boodeen ilaahay amarkiis mid weyneeda hoos ii martay tan kale gidaal ay igu soo tumaysay anigana ilaahay amarkiis awlaaxa meesha yaalay awlaaxigan ku qaraacay dariska igu soo bixin dariska iga celiyeen dariska marka u sheegeen sidii qaabku u jiro inay gabadhan ani iga gardaranahay markii saas loo sheegay gabadhina anay garab isiisay markaas maamadii way soo bood waxay dhahdeen gabadhayda naag oo ilmahayga la dadaalashay meeshan iima joogayso gabadhan darteedan ku kalgo aynay dhahay waan guuraya waan gabadhan darteeda lagu macayaaray anay mas'uul iiga tahay gabadhan meeshii waan ka soo tagay waxaan imaaday qaxootigii 2003 bis 3 marka waxaan ku leeyahay hadda kuwaas waa u shaqeynay lacagan maxaa la dhahay lacagan ka qaadanay laakiin naxariista aan ka helay kii maanta ila dhashay qaxootiga ila joogay kama helin gabadha si ku saacideynaysa zaid okay marka horta aad ugu maadsan tahay qisadaada maaragtay horta aad iyo aad aan maaragtay meel waan ku farxay meel maaragtay aad aan xanuunsaday meesha aan ku xanuunsaday oo aad maaragtay aan xanuunsaday waxa qof lacagtiisa shaqeystay oo haddana maaragtay lacagta uu shaqeystay aan san arkayna taas waa dhibaato aad iyo aad u weyn waay qofka bini'aadamkana maaragtay wax nafta oo jirta inuu shaqeysto waay oo maaragtay waalidkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa wax uu qabto maaragtay loo shaqeystaa laakiin haddii aday shaqadiina maaragtay oo haysid oo mar walba shaqeynayso laakiin lacagtana il aan saaraynin ama waxba aan ka dhimanaynin aad iyo aad horta taas ay u dhibaato weyn waay taas dhibaato aad u weyn waay aan haddii ahaan lahaa horta shaqadaas maaragtay ma ka shaqeyn lahayna maxaa yeelay waa ka caajis lahay maxaa yeelay qofku markuu shaqeynayo wuxuu rabaa wax noloshiisa ku maareeyo oo maaragtay sidii labiskii oo wixii waxaas dhan u baahan laakiin lacagtii aad shaqeysatay qofkii ku siinayay ba aday farax ka saaraynin oo maaragtay qof kale siinayo horta taas ani maaragtay shaqadaas oo kale kuma faraxsani waxa oo dhibaatada oo maxaa la dhahay oo qisadaas iga soo dhacday xanuun oo maanta marka wadankan aan joogay eray maalana gabar wax isdhaafsanay hadalka ay dhahday hadalkaas aan soo xasuustay waayo way idanqiyay maxaana ugu danqaday waxay dhahday maxaa waay waxaan horta qadar ala ilmaha markii aad waalidkiisa korsanayo
allah u qadaray inay waalidkiisa korsadaan صح naftadaana aa ujeedadna ilaaha ku geliyay زي allah wuu kala qaadi karaa waayo hooyaday aabahay hooyaday ma dhiminin aniga aabahay wuu nool maxaa la dhahay aabahay basaa dhintay صح الله ما ha hooyadaydana ayada ima tuurin ايوه ayayday dhehday anaa korsanaya gabadhan isii haddaad labadeen isfurteen صح waayahay hooyaday saasay igu soo tagtay صح marka haddii aan ruuxii aan is afgaarnay cumar اه inuu i dhaho اه waxaad adiga dad maxaa la dhahay afkaada saa ugu baxayo اه waalidkaada kuma soo korsanin daas waay meelahaad kusoo kortay صح hadalkaas waa i danqaya ilaa haddana waan ka xumahay calooshayda dhaawac weynan ku yeeshay ma aha hooyadaada iyo aabbahaada markay kusoo korsadaan inaad sharaf leedahay صح inaa hooyadaada iyo aabbahaada markay kusoo korsanin waxaa adduunkan ninka aabihiis iyo hooyadiis aan usoo korsanin kaasaa kartana u leh kaasaana edabna u leh صح wixii waalidka hoostiisa joogaaba u xunbo صح aniga hadda hooyaday aabe ima soo korsanin runtaan kuu sheegaya hooyay aabaha waa dhintay dugsi liima geynin صح laakiin arkaan aan imaaday kaxootiga اه liima ogolanin dugsigana صح xatooy anaa ku baxaayo ya صح dugsiga waxaan ku gaaray cabasa صح cid dugsi i geysanaysa ma jirto dugsiga hataa waalidiida kaxootiga markaa imaaday waxaas dhibaatadaasaan soo maray laakiin adiga aabbahaad iyo hooyadaada kusoo koriyeen alifaxmaale hataa ma soo baranin anaa marka inaa wax iga sheegta tartaa ka waran وتاس وهذا يقول ma arkaysido ilmaha haddii waalidka soo korsadaanay maxaa waaye daas waay afkaada uu xun yahay hooyadaada iyo aabbahaada kuma soo korsanin no kii hooyadiis aabihiis soo korsadeen waayo ilmahan adiga allah ku siiyey naftadanna allah kugu abuuray hooyadaada marka ayda ku dhashaaba dhiman kartaa اه زائد ها gacanta kusoo koraysa admaa og adiga naftirkaada ubadka aa haysatid inaad korinaysa inaad kaliya admaa og ما ya ani ma sheegi kari aniga hataa fiiri hadda aniga silacda aan kusoo koray qisadii aan kusoo koray hadda ilmahayga intay ku jiraan waa isla taas اه markaysido qisada aan soo maray اه silacdii aan soo maray صح yay maanta ilmahay marwey صح ilmahay ani ma tuuray waa maya ما ني الميس او تورا ما جرت ma jirto hadda intay ku dambooyeen wax kasta fiiri meeshan soo maray wax kasta dhibaatada soo maray ayagana maantan gacantayda kuma jiraan صح ما هو waxaasna qadarkii ilaahay ku dhaceena ana hataa maarta hadarta aan kula hadlaay maarta hooyadeeda ima soo korsanaan maarta hooyadeeda waxay ku nooleed wadana dhahay jilib marka dadkiina qaar laga yaabaa inay ay garanayaan ay ka seenama jilibka marka hooyadeeda waxay ku nooleed jilib marka aabaheen wuxuu ku noolaa meel dhahay bu'aada tuulooyinka yar tuulooyinka yar yar waa bu'aada marka maqla jamaama agteeda waa ها marka hooyadeedii iyo aabaheedii marka waa isfureen marka hooyadeeda marka waxay haystay wiil kale aan iga yar marka waxay labadooda go'aan ay ku gaareen aabaheedii inuu aan i qaato oo maarata hooyadeedina wiilkii yar oo aan iga yar naasku nuugahay inay wadato marka aan aabaheedii sidaasaan kusoo raacay kadibna adii anoo jiro maaragtay 20 iyo adii 2 sano jiro maaragtay marka hooyadeedii waxaa la dhahay hooyadaada waddankaas ay degantay aad soo fiir way ku baahantay meesha hooyadeedii jilib aan aaday marka qofaa liisoo raacsiiyey oo guriga hooyadeeda garanaya jilib aan aaday hooyadeeda waxaan ugu tagay jilib markaan tagay anay maamadii waa iskeeni waynaba hooyadii dhasho waay laakiin waa iskeeni waynaba maxaa yeelay dabeecadii iyo farxaddii isiinayay eedideeda isiin jirtay dabeecadii iyo farxaddii iyo maarata qosolkii fara badnaa iyo maarata waan ka waayay sababtoo ah aqoon uma weliye maarata anoo yar oo weliba oo adii markaasna socod baranayo hooyadeeda liga soo waday ahayd hooyadeeda aabahii markaas ay iskala fureen marka anyway waxaan hadda isoo korisi maarata ilaahay khayr ha siiyee allah ha u naxariistay eedideyda waana geeriyootay marka haddana waa kana dugsina ayada i geysi halahan ilaahay ka sokow ayadaa isoo dhamaysay caqli iyo wax walba maaragtay anoo habi ku ah calaa kulli xaal ugu dambeyn hooyadeeda waxay imaatay maaragtay qaxootiga anaga qaxootiga aan soo guuray markii aan bu'aal aan kasoo tagnay qaxootiga meel istaafurla meel saako la dhahay degna saako waa kasoo guurnay qaxootiga aan soo tegnay qaxootiga haddana laakiin eedadeeda waxay geeriyootay markii falaay aan soo eeynay oo intuu waddankaan soo aaday ay eedadeeda geeriyootay marka weliba anoo aadan ugu faraxsanaa waxaan lahay haddii adigoo eedadaada meesha isla tagtiin ya wax weliba maaragtay dhagdhagay ku yihiin maxaa yeelay anan dhalinyaro ahay murug iyo waxaas iyo maaragtay
markaas waa isdeeri lahayn laakiin hadda maaragtay markii oo iidadeeda ay geeriyootay buufis dhan waa kini jabay farxaddii UK hamiga oo usoo haday kulli waa kini jabay marka waa iska dhaafo marka jabigeed waa iska dhaafay laakiin adii waxaa laga qaaday maaragtay fooman oo sababta maamada ay u geeriyootay horta maamada waxay u geeriyootay gaas ay u dhimatay gaas ay u dhimatay allah u naxariistaa marka adii cadeemeynka maamada ku dhimatay waxaas ay weydiiyeen gaalada wixii aan geeyey kadibna wiil yaraa ila jira adii oo jiro asagana adii markii soo bixin wuxuu jira adii 7 jir oo kale oo maleynaa inuu jiri wiilkii alxamdulillah hadda 5 iyo wuxuu jiraa adii 15 sano jira marka hadii wiilkii hadda waa isla joognaa laakiin eedooyinkii iyo dadka qaar maaragtay oo ilmaha koriyaan horta isku mid ma aha kuwan waxaa maaragtay cunugo waa la silciyaa kuwan waxaa maaragtay cunugooda kii ayaga dhaleen iska dhaafee kan kor laga keenay loo soo dhiibay si wanaagsan ay maaragtay ay la dhaqmaan habi farxaday tusiyaan iskuulay geeyaan waxbarasho wax walba marka waxaan ku sheego maxaa la dhahayaa asiga horta ummadan maxaa la dhahay isku mid ma aha sidii ilaahay bafarahan jin aan ku soo dhigay iyo ummadana tahay qalbiga ibn aadankana ilaaha daalacanayo waxaa laga yaabaa eedadaada oo aabahaada qabo say inay ku soo koriso sidii hooyadaada camal waayo waxaan qalbiga waay wax kasto waxay ugu dhacday aniga eedadayda oo aabahayga qabay oo meesha joogtay eedadayda aabahayga qabay oo meesha joogtay waxay mar kasta dhihi jirtay maxaa la dhahayay hooyadaada way ku nacday way ku soo tuurtay ima haynin hal maalin wax ima siinin hal maalin madax igama dhaqin laakiin waxay xaminaysay hooyadayda mar kasta waxay leedahay hooyadaada way ku soo tuurtay marka cid kastaba horta waxa dhibka keenay maxaa waay makasii waalidiinta naag hadday tahay haddii naagtan la furo inay ilmaheeda laakiin waxa dhibka keenay aabooyinka ilmaha dhaleen waa ay leeyiin canuugan hal anaa korsanayo halna ada hayso waxa dhibka keenayo oo hooyada canuuga laga reewaayo canuuga ninkii korsaday dhibaataha marsiyo ama yuu marsinin ninkaas baa mar walba haddii ninka qalbi wanaag uu la imaado ninkaas sidii waalid camal uga dhaqmaaya inuu asa dhalay camal laakiin hadduu xumaato ku sameeyo sidii anay camal hadda xumaatada ligu soo sameeyo dhalatay ma iloobayo maxaa waaye wax qalbi wanaag aan ka helay aabahayga i dhalay u ahay aabahay markuu dhintay cid nolol oo wanaagsan isoo marsiisay male walaa hawreertayda isoo marsinin walaa eedadayda tii aabahay la dhashtay cid wanaag aan kasoo helay ilaahay abuurtay ma jirto markii yaraay waxba ma ogi ma markaan soo xanaaqaaday laakiin dhibaatooyin badanaa la soo kulmay haddana ilaahay waa ka soo saaray alxamdulillah dhib mala haddana wixii dhibaatooyinka kale kusii haasana allah xaalin karaa videogan maaragtaa waan ugu dheeraaday asxaabi marka marna in hore aan sii wadno videogan meeshaan kusoo afjaraynaa marka asxaabi marka ininkaan ila weydiinayaa sheekooyinkan waxaan u maleynayaa kuwa qaar inay maskaxdiina taabatay aan u maleynayaa marka sheeko hadalka kugu muhiimsan ama aad qoonsatay aad xumaataad u aragtay waa kee marka waxaad noo soo qortaa commentiga wixii saxsan iyo wixii qaldanba haddaad su-aal wadatiin su-aashaada noo soo qor commentiga sifa aan kula soo socono midda kalena videogan asxaabtaada la wadaag una share garay sifa ay ugu share garayaan asxaabtooda kale marka saas nabadgelyan ay leenahay qoftaan waxaa la dhahaa nuurta hadi channel idana channelkeeda booqda subscribe like comment intaasna ka iloowana inta ka bacdina meeshan waa naga arki doontiin janaalkayga ani Cumar America iyo nuurta habi labada janaal waa naga filid doontiin insha Allah diilay diina marka saas aan isku ognahay hadana waxaan ileenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh